مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفاع مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفاع. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الإخوة كلمة كوابا أيها وحين كورنا إن شاء الله تعالى دور شوينك يقف إنه واحد دورته هذي معركتي تهاي مدحوين الله دورنا أيوه يا هذي تهاي قلت ديجان يا هذي تهاي برلمان يوحي لها المال أرين تاسي أرين شرعي ما تهاي مسوى أرين شرعي ضراء أرين تا حكم كيدو مسألة دا حكم كيدو waxa uu ku xiran yahay qofka aad dooranayso maxaad u dooranaysaa maxaad ku dooranaysaa haddii aad qofka u dooranayso inuu diinta Ilaahay subhanahu wa ta'ala ilaaliyo xaqana uu ku taagnaado ummadana uu xaqa ku maamulo dhibaatooyinka iyo wixii shareecada khilaafsanna uu ka ilaaliyo dadka dantoodana uu ka shaqeeyo mid adduuniya mid aakhiraba doorashadaasi mid haddii aad u dooranayso inuu diinta Ilaahay subhanahu wa ta'ala ilaaliyo dadkana ku dhaqo sidoo kale ummadda danteeda guud adduun iyo tu aakhiraba uu ilaaliyo haddaad qofka ku dooranayso waa arrin sax haddaad taa u dooranayso aad ku dooranaysana aqoon aad u leedahay qofkaasi kartidiisa ammaanadiisa diintiisa daacadnimadiisa aad ogsoon tahay arrinta noocaasi mid sax weey wax la xarimi karana ma aha ama madaxweyne ha noqdo ama xubin baarlamaan ha noqdo ama gole deegaan ha noqdo waxa laga yaabaa dadka qaarkood inay yiraahdaan de baarlamaanka sharci dejin baa loo doortaa sharci dejintu marka yaani Ilaahay subhanahu wa ta'ala u gaar ahayn waxaan leenahay hadii loo dooranayo inay ay jideeyaan wax Ilaahay subhanahu wa ta'ala shariicadiisa khilaafsan taasi xalaal noqon mayso wax shariicada islaamka khilaafsan inay jideeyaan hadii loo dooranayo sax ma ah laakiin hadii loo dooranayo inay ummadan danteeda ka shaqeeyaan oo ay xeerar keenaan shariicada aan baalmarsanayna waafaqsan oo ama shariicada laga soo dheegay oo shariicaduba ay waxa weeye de qarirtay ama shariicadii aan waafaqsanayn de waxa weeye dantii guud waxa weeye waafaqsan shariic oo waxa danta guud ay keensanayso shariicadiina aan khilaafsanayn taas hadii ay tahay wax lagu diidaa ma jiraan sharci ahaan qof kasto oo maamul hayaana waa sida uu sameeyo qof kasto oo maamul hayaa waa uu sameeyaa waxa weeyaan amaro iyo awaamir uu waxa weeye soo jeediyo oo dadka lagu fuliyo oo marka dantoodii ka shaqeynaysa waa ay jiraysa horena way u jiraysa taasi marka shubahad saxa noqon mayso kuwii golaha deegaankuna waa saas oo kale hadii laakiin qofka lagu dooranayo loo dooranayo shariicada inuu khilaafo ama loo dooranayo dangaara oo loogu ololeynayo oo loogu saciyeeyo inuu markaa wax weeyaan kursigii gaaro si uu dangaara qofkan ugu fuliyo oo aan dantii guud ee ummadda ahayn
taasi mid markaa sharciya noqon mayso nabigeenuna sala allahu alayhi wala alihi wasalam waxa uu sheegay 3 nin oo ilaahay aanu la hadlaynin aanu eegaynin maalinta qiyaamaha waxaana ka mid ahaa nin la baayactamay yani madax ka dhigay madaxtinimo marka waxa weeyaan kula heshiiyey si uu markaa adduun u siiyo oo haddii uu siiyana uu ku raali noqonayo haddii uu siin waayana aan ku raali noqonaynin in badan baynu maqalaa ballantii baana lagaga baxay maxaa waxna loogu magacaabi waayey sidan iyo sidani taasi markaa sax ma aha arrinta noocaasi dembi weyn oo khatarteeda la weyn sidoo kale haddii qofku uu ku dooranayo kanaanu isku reernahay oo dadkii kale markaa taas kaga hormarinayo iyaduna arrin markaa sharci ah oo shareecada waafaqsan ma aha ee waa arrin shareecadii baalmarsan doorashada markaa sidaa qofka lagu doortaana xalaal noqon maysa xaaraan weyn sidoo kale haddii qofka loo dooranayo inuu diinta ilaahay uu markaa dayaco ama waxa weeye loo codaynayo iyadoo cid ka mudani ay jirto oo qofka aan la eegayn kii ugu habboonaa ma yahay waxa weeye waxyaalo kale qofka lagu qiimeynayo taasina doorashadaasi mid markaa saxan noqon mayso haddii la yidhaahdo doorashadan iyo waxaan gaalaaba laga keenay gebigeedaba maynu daadifayno waxay leenahay islaamku muu diidin in 2 qof la kala doorto ma diidin ama gaalaha laga keeno ama yaan laga keenin islaamkaaba hordooran jiray ayaaba dooran jirayo Uthman bin Affan iyo Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala anhuma baba la kala doorto Uthman baa la doortay marka in 2 qof la kala doorto sharci diidayna ma jiro aqli diidayaana ma jiro laakiin haddii la leeyahay nidaamkan maanta yaala ayaa gaalo laga keenay shareecadana aan sidiisa 100% ku fadhiin arrintaasi sax weey 100% shareecada kuma fadhiyo laakiin waa inaynu u saaciyino sidii markaa waxa weeye shareecada loo waafajin lahaa imika haddii cidi markaa iyadoo nidaamka aan 100% shareecada waafaqsan cidi isku soo sharaxdana xaq waxa inagu ah haddii aynu arkayno qof wanaagsan iyo qof aan wanaagsan oo tartamaya inaynu qofka wanaagsan u codayno haddaynu aragno qof wanaagsan iyo mid ka sii wanaagsan inaynu ka sii wanaagsan u codayno haddii aynu aragno 2 qof oo labaduba liita oo meeshii aan qof wanaagsaniba jirin laakiin kala shar badan inaynu kii markaa sharka yaraa aynu u codayno maxaa yeelay ka aynu u codayno ayuunba hadhow tolo ina maamulay waynu ku qasbanahay hadda ma gacmaha laabo ama ha laabanin qawaacidda shareecadana waxaa ka mid ah takmiilu lmasaalixi wa taxsiiluha maa amkan wa taqliilu lmafaasidi wa dar'uha maa amkan in masaalixda iyo danta ummadda adduun iyo aakhiraba la kobciyo oo la xasiliyo intii markaa la keeni karayo mafaasida iyo dhibaatooyinka iyo wixii ummadda hagardaamo ku ahna in la baabi'iyo la tirtiro ama la yareeyo kolba intii la karayo taasaa markaa waxay keensanaysaa in qofku uu ka qayb qaato haddii qof wanaagsan iyo qof aan wanaagsaneyn u arko ama 2 qof oo kale wanaagsan u arko ama 2 qof oo kale shar badan arko inuu markaa ka qayb qaato oo labada kale wanaagsan kii wanaagsanaa u qaato ka xum iyo ka wanaagsan u qaato labadii kala sharka badnaana ka sharka yar oo markaa qaato macnaheedu ma aha markaad kii sharka yaraa aad qaadatay inaad leedahay adigu 100% baad fiican tahay ma aha dadka qaarkood baa waxay yiraahdaan hadduu hadhow tolo shar sameeyo adigaa lagu qabsanaya taasi waxay ku xiran tahay wixii aad ku dooratay haddaad sidii sharcigu uu yiri aad u dooratay oo kan inuu kan ka shar yar yahay aad u dooratay sharkii uu sameeyay lagu raaci maayo inuu kan ka wanaagsan yahay haddaad ku dooratay sharkii uu sameeyay lagu raaci maayo laakiin haddaad marka horeba miisaan aan sax ahayn wax ku qiyaastay oo tii sharciga ahayd aad baal martay dee waxaad noqonaysaa waxa weeyaan man acaana zaaliman calaa dulmihi qof markaa waxa weeye daalim dulmigiisii ku kaalmeeyey dee sharkiina waad kala waxa weeyaan waad la qaybsanaysaa oo dembigii qayb baad ka tahay marka taas waa in sidaasi loo ogaado dadku ay markaa had iyo jeer gartaan maxay wax ku dooranayaan diinta ilaahay subxaanahu wa tacaala kor qaadideeda sidee uga qayb qaadanayaan in markaa aad iyo aad qof waliba uu u fahmo ayaa muhiima aad iyo aad baan idiin salaamayaa. Assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh.